السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داود يالكو سو دوادا ورك ورباهين تديغان تي في قضبادات كو داود دوتانا وحا كاميدا وفودكو قلقليسا مقالة دردوس مرابي حارون تماملك قلمدوغ مدوغ مرشحين تو أدلب أدري مضاحة كشريسا مقالة دردوس مراب رئيس الوزارة حكومة فيدرالك آية صوماليا والسقالك بشان هورتيغي يولا بضع أقل بارلبانك صوماليا جمعية قرومها كدحيسو أسي كرول وقهذا شيء قرحي شلايك دعي مقالة مقدشو caasimada dalka Soomaaliya khasaare xoog leh oo ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya baarlamaanka maamulka Hirshabelle oo ka jawaabay codsi degdeg ah oo ka yimid madaxweynaha maamulka Hirshabelle qodobada dibadda waxa kamid ah dalka Myanmar oo xaalad degdeg ah la geliyay ka gadaal markii talada dalkaasi ay xoog u la wareegeen militariga dalka Myanmar intaas waxay hayaan qodobadii warkan ugu doorka roona daawadeel haataas ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa durbaba gaaray magaalada Dhuusamareeb waxaana madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo wafdigiisa magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo qaar kamid ah xubnihiisa golaha wasiirada iyo sidoo kale baarlamaanka ayaana Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kaga hortagay gegada garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxa gaaray wafud horudhac u ah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka wada tashiga madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa looga ballansan yahay inuu magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug uu ka furmo caawa inkastoo markii hore qorshuhu uu ahaa in maanta uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb inkastoo qorshaha markii hore uu ahaa in kowda bisha February guud ahaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda ay goobjoog ku ahaadaan magaalada Dhuusamareeb shirkana uu si rasmi ah u furmo laakiin ilaa iyo hadda waxa rasmi ah magaalada Dhuusamareeb u soo gaaray madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo saacadihii hore ka soo duulay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa dhexdhexaadin ka waday maalmihii la soo dhaafay madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa federaalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ku dhawaaqay in sagaalka bishan aan ku jirno ee February xukuumaddiisu ay baarlamaanka horgeyn doonto warbixinta guud ee qaranka qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay 3 bilood jirsatay sida daraaddeedna ra'iisul wasaaruhu uu baarlamaanka horgeynayo waxyaabihii u qabsoomay sagaalka bishan aan ku jirno ee February 3 bilood ee ay jirtay xukuumaddiisa ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Roble ayaa ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay si weyn uga feejignaadaan cadawga gudaha iyo kuwa dibadda ka gadal markii gabaldhicii shalay weerar ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku soo qaadeen mid kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho 17 bishii September ee sanadkii aan soo dhaafnay 2020 ayaa Maxamed Xuseen Roble loo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaana baarlamaanku ay ansixiyeen 23 isla bishaasi September 2020 xubnaha murashaxiinta ayaa ku baaqay in laga qayb geliyo shirka magaalada Dhuusamareeb ugu qabsoomi doona dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira war-saxaafadeed ka soo baxay midowga murashaxiinta ayaa waxa lagu sheegay in fursadda magaalada Dhuusamareeb ay tahay tii ugu dambeysay isla markaana dawladda Soomaaliya ay fursadaasi ka faa'iideysato murashaxiinta ayaa ku baaqay maadaama dalka la wada leeyahay in halka lagu go'aaminayo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed aana iyagu ka maqnaan inkastoo aanu jirin qodob dastuuri ah oo u ogolaanaya in shirkaasi ay ka qayb galaan qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaaraysay weerarkii lagu qaaday Hotel Afrique ee magaalada Muqdisho wakiilka gaarka ah ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u jooga Soomaaliya Ambassador James Iswan ayaa waxa uu sheegay in ay ka argagaxeen weerarka arxandarada ah ee lagu qaaday Hotelka Afrique ugu yaraantii 15 qof ayaa ku geeriyootay halka tire kalena ay ku dhaawacantay wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu tacsiyeeyay dhibaatadii ka dhacday Hotelka Afrique waxaan aad ugu xunnahay khasaarihii iyo dhibaatadii soo gaaray shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ayuu yiri wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u jooga Soomaaliya Ambassador James Iswan madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed Hirshabelle علي جودلا وحسين أيها جرها برلمان كمان ملك هيرشبيل واحد وكعد صدي إن دب لوجان دجا جورت وصامجا عاب يا جله سوسيلة ده وحنا أفري كنت المضنة أو جلادين عد سيجا من حوين جودلا وغيران تيشني طبعا قف أيها كل ما تقرأ
qarax shalay galbihii ka dhacay magaalada muqdisho si gaar ah hotelka Afrig dowladda Soomaaliya waxa sheegtay in dad badan oo kale ay ku dhaawacmeen inkastoo marba marka ka dambaysa qaraxaasi khasaarihiisu isa soo tarayo dadka dhintay Allah u naxariistay ee sida weyn loo garanayo waxa kamid ah General Maxamed Nuur Galaal inkastoo ciidamada ammaanku ay dadaal dheer ku bixiyeen in la soo badbaadiyo haddana waxa la sheegay in ugu dambeyntii uu kamid noqday dadka ku geeriyooday hotelka Afrig ee magaalada muqdisho wararka qaar ayaa sheegaya in dadka dhintay ay kamid yihiin lamaane aroos ku ah hotelka isla markaana lagu kala magacaabo Fahad iyo Farxiya kuwaas oo iyagana la sheegay in gacanta dagaalamayaasha al-shabaab ay ku baxeen militariga Myanmar ayaa talada dalkaasi xoog ku la wareegay gabadha 10 sano ee la soo dhaafay maamuleysay wadanka Myanmar ee la yiraahdo Aung San Suu Kyi ayaa waxa la sheegay in xabsiga la dhigay iyo qaar kamida xisbigeeda oo dhawaantan uu ku guuleystay doorasho ka dhacday wadanka Myanmar November doorasho dhacday ayaa xisbigeeda la yiraahdo NLD waxa ay si weyn ugu guuleysteen doorashadii ka dhacday wadanka Myanmar afgembiga ka dhacay wadanka Myanmar waxa si weyn ugu digayay jibciyada qurumaha ka dhaxaysa taas oo sheegtay in militarigu ay damacsan yihiin in xukunka rayidka ah ay militari u bedelaan warka aad ka daawaneysay warbaahinta deegaan TV ayaa inta ku dhar warkan warka xigeentaan ku kulmo doono nabadgelyo